arrinta kale oo muhiimka waxa weeyaan baaritaan aan sameynay waxaan ogaaday 450 ilaa 500 meelaha qaarkood tirada qaarkood 600 dad gaaraya ayaa Hindiya u aada caafimaad qaarkood dabcan Kenya aada Turkiya aada laakiin Hindiyan ka hadlaya Hindiya 400 oo qofood ka badan bishii aada caafimaad ay u aada qof kasto dadkaas kamid ah lacagta ugu yar oo ka soo tagaa waa 20,000 qofka ugu yarna wuxuu soo joogaa bil 30 beri waxaa la socda dadka inta badan qof ama laba ama saddex gurigay kireystaan turjubaanay kireystaan qaarkood waxa lagu leeyahay 6 bilood jooga 3 bilood jooga qaarkood soo laabta lagu leeyahay 6 bilood ka bacdi soo laabta qaarkood hal sano jooga aniga qoyskayga 3 qofood laba adeeraday iyo gabar almaadeerna hay aad saddexdoodu waa ku dhintay kii u dambeeyay hal sano joogay halkii sano u dambeeyay ku dhintay dadka jooga Hyderabad iyo meelaha maartay dadku ay tagaan Soomaalida yani magaalooyin Soomaali ay maqaayadaha ka sameeysan Soomaalida joogta you can imagine waxa health tourism dalxiisayaal caafimaad dad daruuf hayso gobollo laga keenay lacag loo soo aruushay ya Allah iyo qaatir billaah laga joogo ayaa aaday meesha dhowr jeeron transit ku ahay Dubai ama Dubai u socdaba dadka xamal iga raacay 40% waxay ahaayeen dad Hindiya u socdo transadaha dadkaas oo dhaqaale aad u tiro badan ay wadanka ka qaadaan waxayna geeyeen Hindiya dawladda Soomaaliya iyo ganacsatada waaweyn sida Hormuud iyo Dahabshiil iyo kuwa kale la halmaa waxay awoodaan inay isbitaalo waaweyn oo mega isbitaalo waaweyn inay wadanka sameeyaan dhulaanuna ma hayso dhaqaalaana ma jirto wadamadan aad maalin kasto diyaarad noo soo dirleedana waxaad awoodaa dawladda Soomaaliya tira war isbitaal weyn hana loo dhiso تقصصكيسو محو yahay isbitaal kansarka ku taqasusay isbitaal neerfaha isbitaal dadka gubtay isbitaal dadka maskaxda isbitaal yani waxyaabaha Hindiya loo aado isbitaal lafaha dadka jilbaha inta badan ka qaylay waxa soo dhan waxa awood loo leeyahay in la dhiso ka bacdiina lagu daaweeyo dadkaas dibadda aaday wadanka boqolaal milyan ayaa dawladda Soomaaliya dadka Soomaali badbaadaysa dhaqaalahaas wadankay dib u galayaan hantidan Soomaaliya soo galaysa waxa uu badbaadaya waqti iyo maarta wax badan dadku waxay ka cabanayaan hatta daawooyin isu baahnay in la sii Hindiya lagu siinayo dhaqaatiirtu jirra aysan qaban inay ka sheegayaan qofan qalin u baahnay in leeyahay waa lagu qalaya